السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحكيم يري اوفيشال فضلا هداد كو عسبتا سبسكرايب لايك شير كومنتنا ده سي او غارت اصحابتها كان شير تنوبدي هذا انا كنا خالد كراس من دقيقه كان عاو واني كلي محدي ودا تل كليتو جدي مالمان اذا عدا wax la warhayo gaal weyn oo baqtiyay ay noo bumbunaya meeqa islaam ayaa ku dhimatay koor jilib qoor la saar hal gaal biino shan oo gaal kala dilay maalin kasta ayaa la gumaadaa dad masaakiin oo islaam ah oo damadooda xoog u weysta sida Falastiin oo kale waad ogtiin 60 sano ayay gumeys Israa'iil ku weysa cid ka hadashana male idaacadahan waxa malaysa maalmahan inay burburinayaan hal gaal oo gaal kala dilay oo madow iyo cadaan u kala helnaa laakiin meeqa ay islaam ah ayaa jilibka qoorta laga saaray maalin walba adduunka daafiisa kala duwan kuleeta garan maayo sababaha keenayo in islaamka hoos loo dhigo gaaladana markii wax yar laga sameeyay kor loo qaado idaacadihii burburinayaan ka dhigan wax balaaya kuleeto ma garan xaajada laakiin niyad ahaan islaamka meel walba joogaan horta ilaahay soo hanuuniyo qalbiyadoodana alla isku soo duwo ma dhihi karo aniga yacni gaalka wuxuu ku dhintay si qaldan laakiin boqolaal islaam ayaa maalin ilaahay keeno si qaldan loo duqeeyo ama loo dilaa ama si dadban ama si toos ah noqoto taasna ma ana arag wax ka doodayo wili kuleeto waan ogtiin idaacadaha adduunka kuleeto maamaan waxaa saaran gaal lagu dilay dalka Mareykanka oo leeyihiin xaq dara loo dilay ama si qaldan baa loo dilay jilba qoorta la saaro neefta baa lagu celiyay maana garan taas ani laakiin boqolaal islaam ayaa ku dhacda maalin walba in jilba qoorta la saaro nafta si xun loo silciyo maxaabiis ah xabsiyada adduunka daafiisa kala duwan ku jira oo cidna ka hadlin hay'adna u doodin cid daba kacdana jirin maanta nin islaam haddii wadadaas laga qabsado ama si qaldan wax loogu dhufto cid ka hadlaysa male sababtoo ah meel bay ka baqanaya dadka islaamka ah daciif bay si u yihiin garan mahayo geesinimadii lagu yaqaan islaamka ma haystaan garan mahayo waxaa ku dhacay ay ka dhan waxa u malaysa dad gumeysi ku jiro yacni dusha unbaa maskaxiyan ayaa loo gumeystay oo awood ay ku hadlaan mar waa aragteen wadamada caalamka islaamka wadan kale islaama lagu duulayaa ay ka u sacbatumaya ihimayaan wadankan si loogu duula sabab maxaa keenay ay ka yaaba sacabaha u tumayo horay dhahayahay wadankaas in la burburiyo waa diyaar sida hadda ogtiin carabta kale kuleet markii la burburinayo kuleet ay ku umbaa isku adeegsan wadan walba oo la burburina wadanka islaam ah umbaa loo adeegsada taasna sababteedu waxaa keenay daciifnimo dhexdooda laga arkay marka ma dhihi karno yani ma dhihi karno sorry maana dhihi karno awood la-aan ayaa hayso oo awoodii ilaahay uu siiyey geesinimada ilaahay uu siiyey laakiin intee laga dagaalama halkaa intay kala yihiin awood dhan ma hayaan qalbiga ayay wixii isku waan cugdi iyo buuxsi waxaan la sheegi karin kuleet aniga ahaan man dhahayo man u helinayo gaal ayaan saas ah kuleeto ogtiin wadamo badan oo islaam ah sida Falastiin Ciraaq Afghanistan ayaa la gumeystay welina lagu hayaa duqeyn maalin ilaahay keena oo dhulka la jaraya dad masaakiin oo iska fadhiyo leeyahay alqaacidi ahay saambi ahay kuleeto aan waxaan dhihi lahaa taas ila qaldanta Soomaalida joogtana kuleeto dalka Mareykanka maama waxyaabahaas ay saaid u bubuna war waxaa jira boqolaal islaam oo Falastiin oo wadamo kala duwan leh oo jilibka qoorta laga saaro nafta si xun uga baxday ma aha gaal xun inaad bubunisaan ama aad ka dhigtaan wax weyn boqolaal islaam ah ayaa adduunka daafiisa si silac ah loogu dilaa maalin ilaahay keen cid ka hadashana male cid soo qaadatan warkooda male marka ma aha kula noqonin inaad bubuniso gaal xun oo maalin walba website-yada soo dhigto ama social media saa wada ognahay fadlan isku day walaalkaada dhibana jira saa ku caawin lahayd ku fikir walaalkaada culayska haayo si uu bixi lahaa fikrad ahaan tala ahaan qarash ahaan dhan walba u caawin kartid oo haddaa fikrad dheertahay haddaa awood kala dheerta haddaa lacag dheerta caawi laakiin ma aha gaal xun inaad soo bubuunisaan oo dhahdaan gaalkan isaan baa loo dilay boqolaal islaam ah ayaa maalin walba jilbaha qoorta laga saara si xun u dhinta qaabdaro loo dila cid ka hadashan iyo cid u dooda iyo cid fikrad ahaan xataa isku dayda ma jirto laakiin gaal xun markuu dhintay waxaa u malaysaa in xoogaa la bubuuninayo social media saaid maalmahan loo soo dhigayo oo warkiisa dartiis xataa waxaa malaynaya waa dukaamo badan loo bilqaystaa laleeyahay laakiin nin islaam maanta markii la dilo cid ka hadlaysa ama wax dhehaysa ama jawaab ka bixinaysa ma jirto fadlan islaamnimadeena xagee aad damiirkeena yaa qaad gaal baa maalin ilaahay keen u daba dhaqayna waa maya isku day marka walaalkaada dhibaataysan ina caawisid si uu uga baxo dhibka
ma aha boqolaal islaama ayaa adduunka daafiisku daayacan qaxooti ah xerooyin ku jiro dayacdaraysan oo si qaab daran meelo ugu nool caawi walaalkaada midda kale waxaa dhihi lahaa waddamada islaamka isku xirmaan because adduunkan gaaladu isku xiran yihiin way kala tala qaataan way kala ra'yi qaataan kharash ahaan dhaqaale ahaan wax walba isku caaween maxaa ku dhaca islaamka nin islaama nin kale hadduu madalaciso ibinta kale ayaa lagu kacagsamarayna maxaa keenaya qalbiga ayuu la'yahay yani islaamnimadaba wuxuu u maleeyaaba qof haddii lagu ag istaagto lagu ag sawiro inaad noqonaysid qof xun islaamka waa la xumeeyey maahane ma aha islaam xun waa dad wanaagsan waa dad diiniya dhaqan ahaan u wanaagsan waa dad deegaan ahaan haddii la dhaho haddaa la degtid wanaag badan kuleeto qofka islaam la dhaqmo dareemi karaa oo gaal ahaa qaabkii ula soo dhaqmeen laakiin adduunkiyaa wuxuu ka dhigayaa islaamkii wax xun dadka loogu sheekeeya inay yihiin dad xunxun oo alqaacida oo terroristiya oo meelaha qarxiyo oo saacad walba ayka isdila oo saacad walba aqooninba xishmad dhaqan dhaqaale xishmad aqoonin dhaqan wanaagsan aqoonin ayay ka dhigeen ma aha taas islaamku waa diin qaalisa oo naxariis badan oo una ogoleen in qof lagu xadgudbo xataa kan aa og tahay gaalka inuu yahay kuma ogola inaad ku xadgudubto sababtoo ah diiniyan ahaan ilaa uu xarbi aa kula jirto mooyaane xarbi markaa kula jirto haa wax naxariis idinma dhex yaalin laakiin xarbi hadduusa ku jirin uma dhihin dil soomaaliya waxay dhahaan been ma sheegto laakiin soomaaliyu been way sheegtaa laakiin been kuma maamaan gaalka dil gartiisana siiyay dhahaan kuleeto waa dareemi karta erey macnaha yani ma aha qofkan dulmi laguma dhihin inaad dulmisana laguma keeni inaad diin ahaan u dulmisana laguma keeni diinta faraa lagu dhaa wanaag u far wanaag u sheeg laakiin xumaaha adiga marka adi xumaan samaysid oo kaa arka xumaan inaad samaynaysid diinti wuu nacayaaba sababtoo ah adaa nacsiinaya ilaan waxaa bilowday waxyaaba uusa asi filaheen uu sameynaya wax ka daray inaad samaysaa laga yaabaa markaas saabteeda waa iga ra'yi waa iga tal ahaan dadka walaalihiin islaamka caawiya ma aha gaal xun inaad buubuunisaan sidaan ognahay gaaladan kuleet islaamka unbay cadow ku yihin ma aha walaalkaadu cadowgiisa inaad maanta garab siiso garab istaagto la banaan baxdo marka asxaabteedi talada waa xaggiida wixii akhbaar communitiga noogu reeba halkaan naga daawanaysaan waa xakiim yare official fadlan haddaa ku cusubtaa subscribe like share dheh si daafaha dunida ay u gaarto asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu